qiso cajiiba runtii oo na jeclaystay dadka inaan la wadaago ayaan rabaa inaan idin soo gudbiyo insha allahu tacaala wax badanna inaan ka faa'iidaysan doono ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala qisadu waxa weeyaan walaalayaal shaydaan baa meel degnaa macal caruurtiisa waxay tamaniyeen inay guuraan mid ka mid a marka shayaadiintii oo caruurta midkii yaraa ayaa wuxuu arkay teendho agtooda ku taalo oo dad ay degan yihiin wuxuu go'aansaday anoon dadkan dhibaatayn ka guuri maayo waxun inaan ku sameeyo waayo wa ficlan wuu baxay wuxuu arkay teendhadii inay joogaan maamo cunug yar haysato iyo sac meel ku xiran tahay bahalkan watadka la dhahayo oo wataday dhahaan carabtu oo teendhada marka la dhisaayo tiirka yaroo dhulka loogu suraayo xarig ku xiran xariggaas wuxuu ku xiran yahay sacdii maamadina sacdii ay lisaysaa kadib shayddaankan wuu yimid xariggii u dhaqaajiyey markuu xarigga saan u dhaqaajiyey watadkii sacdii way oraday way naxday caanihii horta way daateen cunugii yaraa oo sacda hor taagnaana way dardartay wuu dhintay maamadii way carootay cunugna ma hayso caanihii way ka daateen sacdiya waana sababtaas lahayd markaasay garaacday way dhaawacday ilaa ay ka disho ayadoo xaaladdii ku sugan ayaa waxaa albaab ka soo galay ninkeedii wuxuu arkay cunug yaroo dhintay wuu isku naxay sacdii haddana miid ah oo dhaawacan in la garaacay muuqato gabadhii garaacday oo ayadana caraysanoo budkeeda haysato intuu qabtay oo si xun u garaaca isagana wuuna furay way qayla dhaansatoo dadkeeday u yeertay oo inay u dacwooto wiilashii walaalaheeda ahaa waxay ku soo hajuumeen ninkii gabadhooda qabay oo haddana furay oo saana u galay si xun bay u garaaceen ninkii dadkiisuu la hadlay asana wiilashii walaalihiisa imaadeenoo haddana asagana dagaalkiiya meesha ka dhacay labadii famili dagaalkooda oo min ahliha wa min ahlihi ayaa isu khilaafay meeshii shayddaankii weynaa ayaa yaabay arrinta meesha ka dhacday wuxuu la yaabay cunugii yaraa uu dhalay uu baxay oo dhibaatadan sameeyey markaasuu le way xag war maxaa samaysay waxaan ummaddan oo degneed dagaalka ka dhex socdo inta dadoo dhimatay intaan dadoo dhaawacan oo waxa weye cunugii oo dhintay sacdii oo dhimatay caanihii oo daatay war waxaan maxaa samaysay adiga waxba ma siman aniga bas watadkaas xariggaasoo sacda ku xirnaa oo tiirkaas ku xirnaa keliyan dhaqaajiyey yacni sacdii oo cabsi geliyey keliya musiibada meeshay ka bilaabatay marka walaalayaal meesha waxaa nooga baxay marka dad badan oo odayaal leh oo waxa weeyaan salaadiin leh mas-uuliyiin leh ayay waxay ku hadlaan laba kelimo aan badnayn ummad baa isku dagaalaysa ummadaa isbaabi'inayso waxa weeyaan dad noola ayaa god galayo haddii la weydiiye aday maxaa samaysay maya ani waxba ma sameeye ani hal kelimaan ku dhaha bes aniga nasiixaan u jeediyey bes aniga intaasaa ula dan lahaa oo uma dan lahayn in arrintan dhacdo kelimadaasi ama ficilkaasi yar oo anaka nala yar ayaa wuxuu sababaa ummad inay u baaba'do ummad inay ku noolaato baqdaa'i shaxnaa qabaa'il inay isku dagaalaan oo isku baabi'iyaan laga yaabaa maanta soomaaliya dhan intaan musiibo haysata hal qof inuu sabab u ahaa hal qof ficil uu sameeyey ama dembi uu galay inay sabab u tahayo maalin kastana dembi la sii galo dembigii deentiisa weli ay nugu sii harsan tahay aysan naga dhammaanin ilaa yowmina haadaana xisaabtii ay nugu socoto marka walaalayaal ilaahay aan ka cabsana subxaanahu wa tacaala